diiwaangelisay dal ahaan. barta rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa dal ahaan u diiwaangelisay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland. arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii dowladda Itoobiya ay daabacday khariidad muujinaysa in Itoobiya iyo Soomaaliya ay hal dal yihiin. wasaaradda oo taxaysa dalalka ay xarumaha diblomaasiyadeed ku leedahay ayaa dal ahaan u diiwaangelisay Somaliland iyo waliba Puntland. warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo haatan stuudiyaha igula sugan. كوسري وزارة arrimaha dibadda ee Itoobiya oo ka hadashay arintan ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay madaxbannaanida Soomaaliya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in Puntland iyo Soomaaliya ay aqoonsan yihiin inay hoos tagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda waxa kale uu sheegay in ay safaarad ku leeyihiin magaalada Muqdisho balse Somaliland iyo Puntland ay ku leeyihiin xarumo diblomaasiyadeed. waxa kale uu sheegay in boggooda arrimo badan ay ku qoran yihiin uuna sheegay in ay dib u eegis ku sameynayaan. kowsaray dad badan ayaa weli xusuusan khariiradii Itoobiya Soomaaliya meesha ka saartay balse mar kale Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ayaa ka careysan qoraal kale oo ka soo muuqday bogga wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. wasaaradda oo taxaysa dalalka ay xarumaha diblomaasiyadeed ku leedahay ayaa dal ahaan u diiwaangelisay Somaliland iyo waliba Puntland. tan iyo markii isbedelka uu ka dhacay ee dalka Itoobiya ee xilka uu qabtay Abiy Ahmed waxa soo hagaagayay xiriirka siyaasadeed ee labada dal balse dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horay u sheegtay inay ka faa'iideyso isbedelkaasi siyaasadeed ee Geeska Afrika. dhanka kale dadka arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda ka faalooda waxay aaminsan yihiin in arintan ay muddo soo jiitamaysay. danjire ciid bedel oo ahaan jiray ee safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay oo dhawaan la hadlay BBC-da ayaa sheegay in siyaasadan ay tahay mid ka horeysay Dr. Abiy Ahmed oo waxa uu leeyahay siyaasadan waxa dejistay dowladii Mala Salaawi. Kowsar aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo ahaa wuxuuna inala socodsiinayay wararka la xiriira dowladda Itoobiya oo mar kale soo jiidatay indhaha Soomaalida kadib markii Somaliland ay u diiwaangelisay dal ahaan.